runtii sidaa sheegtay maalmo qiimo badan aan ku jirnaa maanta waa maalin qiimo badan waa maalintii gobolada koonfureed ee dalku ay xoroobeen sidoo kale tan labada gobol ay midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas ay ka samaysatay Allah u naxariistay halgama Cabdullaahi Ciise waa nin taariikhda xorriyadda dadka Soomaaliyeed ku suntan qiimo aad iyo aad u weyn ku leh dadka Soomaaliyeed halgan adag u soo galay in Soomaaliya ay xorowdo jamhuuriyad ay noqoto meel adag waqti adag ka soo bixiyay marka dadka Soomaaliyeed oo dhan ayuu ka mudan yahay duco wuxuu ka mudan yahay xusuus wuxuu ka mudan yahay taariikhdiisa in la nooleeyo waxa sharaf u ah in taariikhdiisu markasta ay mataan la tahay oo ay ku mataanaysan tahay maalmaha xorriyadda marka runtii dadka isagoo kaleeta ah waxay mudan yihiin markasta in la xusuusnaado oo maaragtay muxuu ahaa qalbiyada lagu hayo oo la weyneeyo oo la qadariyo waa mahadsan tahay runtii horta waxaan rabaa inaan kuu sheego maalinta dadka Soomaaliyeed ay xornimada qaadanayeen oo qaran noqonayeen qaar Soomaaliya hadiidana oo wax ka sheegay oo hortaagna in dadka Soomaaliyeed ay xor noqdaan maantay oo Soomaaliya mar kale ay ka baxayso dhibaato adag oo waqti dheer ay ku jirtana kuwa isku dayay in ay iftiinkaas mugdi u bedelaan oo ay qariyaan waxba kama duwana kuwa markii Soomaali ay xorowday oo ay xoroobaysa diidana magaalada Muqdisho iyada hadashay Soomaaliya iyada hadashay iyada ismuujisay meel la hor istaagi karo ma joogto maanta meel qof maaragtay qalbi xun oo isku day kareen oo sawirka Soomaaliya ka bixiyo ma joogto dawladnimada Soomaaliyeed waa mid xalay madaxweynaha qaranku uu kumanaan dad asagoon hal qori la socon oo dhex damaashaaday oo dhex socday rabitaanka dadka Soomaaliyeed wuxuu ahaa midkii ka jawaabayay baaqi madaxweynaha kii ka jawaabayay weeye caasimadda Muqdisho waa magaalada xalay dadka Soomaaliyeed ay arkeen marka intaas ku filan hadal ku filan intaas cadeyn ku filan intaas bayaan ku filan lama joogo waqtiga qof guri ku xiran oo iska sheekayn lahaa oo iska hadli lahaa oo dadku ay dhageysan lahayn lama joogo waxa la joogaa waqti reyn iyo barwaaqo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sidaas ka sii wacan oo ka sii wanaagsan in mustaqbalku uu inoo noqdo insha Allah ta'ala